الوزير ciidanku waa ciidanka aad u jeedo shaqada gobolka ugu adag bay hayaan waa ciidanka ugu tayada fiican waa ciidanka aan weli inta Somaliland dhisnayd waa ciidanka kaliya aan weli dhaliil kaga soo bixin halka jananka ciidanka asluubta waa jananka noogu fiican hadda intii Somaliland dhisnayd jananka noogu waxtarka fiican gidaarka aad aragto oo saddex xagga ka waa 70 mitir korna waa 3 mitir iyo bar ama waa 4 mitir marka lagu daro birta saddex meelood dhinaca waa saddex jeer oo shub ayuu leeyahay 8 rukun oo shub ah ayuu leeyahay waa gidaar garantiya qor kale aan ku tusi doono oo shub ah ayuu noo dhisay gaari ayuu nasiiyay wuxuu soo diray ciidanka xilliga dhaxanta koodharkii dhaxanta ka waa cadaalad ahaan adinkuna waxa noo qabanaysaan adigoo ah wasiirkii Somaliland ee u dhashay gobolka Sanaag ee reer Sanaag oo dham soo dhaweeyeen waxaanu ka filaynaa annagana inaad wax qabadkii aad noo qaban lahayd si fiican baanu kaaga rajaynaynaa ciidamada wasiir xabsigu waxa ugu dambeeyay dhismo Ingiriiskii iska wax u qabso ayaanu wax badan annaga ciidankan iyo ilaa taliyaha iyaga qaybta oo hadda yar xanuunsanaya oo garada jira ayaanu wax badan oo iska wax u qabsho ka qabanay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaadanayaan horumarada ka socda xabsiga dhexe ee magaalada Ceergaabo isagoona wasiirku sidoo kale kormeer ku sameeyay wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaag waxaanu idinka mahad celinaynaa dadaalka had iyo habeen aad ugu jirtaan shaqada qaranka waa run sidii taliyu ka waramayay magaaladan iyo xabsigu waxa weeye muhiimad weyn ayuu u leeyahay ciidamada asluubtu way ka duwan yihiin ciidamada kale ee qaranka shaqo aanay hayn ayay hayaan waayo waxay kaga duwan yihiin waxa loo keenayaa nin gacan ku dhiigla mid tuug ah mid laga ashahaatay waxa marka laga rabaa inay hayaan kaliya maaha inay dhaqan celiyaan waxa kale oo xusud midan in aad dhisteen gidaar aad u dheer runtii shub ah 3 mitir ah kor u ah dhinacaana u ah 70 mitir gidaarka oo aan waxba idinka caawin idna idinka caawin idinku iskiin aad u dhisteen budgetka qarankana aan ku jirin waxaanu kaloo isna uga mahad celinaynaa taliyaha cusub ee ciidanka asluubta General Libaax oo isaguna arintan ay ka timi dhisay ku hawlgalay farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu xariga ka jaro iyo inaanu idin nimaadno waxaanu idinku boorinaynaa inaad shaqadiina sii wadataan sidii taliyuhu u sheegay xabsigan Ingiriiska baa la dhisay waa dayacan yahay hawl badan buu u baahan yahay insha Allah wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba xabsiga ugu horeeya ee aanu wax ka qabanayno inuu yahay ayaanu ballan qaadaynaa idinkuna wixii aad u baahan tihiin ama wasaarad ahaan nagaga keen